السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيقو سكري عيسى أو مقعدر حرباوي maanta insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan idinla wadaago cashar yaro aad iyo aad u muhiim ah kaasoo ku saabsan indicatorska ugu fiican maalinlaha maadaama aan u badan maalin day trade wax yidhaahdo ama si joogto ah ayaan maalin walba u trade galaynaa. sidaas darteeda indicators ayaan isticmaalnaa. marka midka ugu macquulsan ama midka ugu fiican aan isticmaali karno ayaan rabnaa insha allahu tacaala inaan isla fiirino haddoo lidmo aan isu gudbiyo. Indicatorsada way aad iyo aad ay u fara badan yihiin, waa kuwo badan. marka mid ka mid ah ayaa maanta soo gudbinaya oo aniga aan aad iyo aad ugu trade gareeyo oo aan ka qaato decisionada signalska aan ku galayo haddoo lidmo. indicatorska maalinlaha ugu fiican horta waxaa weeyaan waxa loo yaqaano RSI. okay, RSI was free indicator oo aad ka heli karto TradingView ama investing.com ama xitaa aad ka dhex helayso brokerkaaga, xitaa aad ka dhex helayso platformka haddii aad isticmaalayso iyo haddiiba aad isticmaalaysaba appka oo telefonkaba haddii aad ku isticmaalaysaba labadaba aad ka dhex heli doonto insha allahu tacaala, waana free. meeshaan ayaa kala soo bixi kartaa indicators and strategies. waxaa weeyaan indicatorska waa qayb ka mid ah strategiyada, ama scalping ha noqoto ama swing ha noqoto, waa qayb ka mid ah oo qofka uu ku trade garan karo haddoo lidmo. waxaa qoraysaa only RSI, isaga ayaa soo badayo waxaa loo soo gaabiyaa relative strength index. okay, keliga haddii aad siisa marka already laba RSI ayaa ii saaran, marka mid hore ayuu igu jiray, mid ayaa iska bixinaya. okay, marka 14 cisho weeyaan, 14 cisho celcelis ahaan haddoo lidmo. marka relative strength index waa indicator kaasoo cabiraya marka qiimaha isbedelkiisa ayuu cabirayaa. wuxuu ku cabirayaa RSI wuxuu leeyahay overbought iyo oversold. okay, qiimaha meel sare inuu ku dhamaado overbought waa micnaha too much ayaa loo gatay ama wax badan ayaa la gatay, qiimaha hoos ayaa laga soo iibiyey, kor ayuu aaday, waa qiimahan meel kaloo sii aado ma laha in lasoo rido mooyaane. marka qiimaha mar walba oo kor aadana xoogaha ayaa la soo celiyaa, kadib ayuu haddana kor aadaa oo structure ayuu sameeyaa. ayana videoyada kale ayay ku qaadanayna insha allah. soo marka RSI wuxuu kusoo bandhigayaa marka graph ama line ayuu kusoo bandhigaya, kaasoo marka uu ku dhex muujinayo celceliska uu ku sameyn doono meeshaas. waana graphka linekan ayuu kusoo bandhigayaa hadduu lidmo. marka graphkan markuu muxuu ka kooban yahay ama u dhexeeya 100 ilaa 0 ayuu u dhexeeyaa, oo akhriskiisa qiimaha 80 ayaa ugu koreeyo. laakiin mostly markii la fiiriyo qiimaha intuu ku dhex wareego caadiyan, oo haddii uu ku dhex wareegayo waxaan leenahay 70 ilaa 30 ama 25 haddii uu ka dhex intaas haddii uu ku jiro qiimahaas waa caadi. laakiin hadduu 70 oo ka baxo waxaa lagu magacaabayaa, iyo wixii ka badan hadduu tago 80 iyo something ayaa ugu badan oo badana uu tusiyo. haddii uu tagana 90 waxaa leenahay waa overbought oo waxaa weeyaan waa aadaa loo gatay. okay, haddii uu ka hoos maro 30 ilaa 25 oo kasii hoos marna waxaa leenahay oversold, waa wax badan ayaa la iska iibiyey. sidaas darteed marka qiimaha marka wuxuu ku sheegayaa haddii wax badan oo 70 iyo something oo ka kor maro qiimahaas wax badan ayaa lasoo iibsaday. sidaas darteed marka isku diyaariya hadda inuu reversal uu sameeyo, qiimaha isbedel inuu sameeyo isku diyaariya. mar alaale markuu uu sameynayo marka dhowr shay ayuu u sameeyaa. wuxuu sameynayaa lineka 2 jeer inuu soo laabto, tusaale ahaan meeshaan oo kale markuu kasoo laabto uu soo dhaco haddana wax yar inuu kor u laabto, micnaheeda qiimaha inta ayaa laga soo celiyey haddana kor u laabtay, qiimihii waxaad aragtay haddana inuu soo dhacay. mar walba structure wuxuu sameynayaa higher lower ayuu sameynayaa, marna wuxuu sameynayaa lower higher, marna wuxuu sameynayaa lower. okay, structurekaas ayagana 1 by 1 ayaan u qaadanaya. sidaas darteed marka sidee baa ula dhaqmaysaa? waxaa ula dhaqmaysaa 70 something markuu ka kor maro
at least waa laba jeer waa inuu meeshaan uu ku dib wareegaa sidaan oo kale laba jeer waa inuu meeshaan uu ka ag dhawaadaa sidaan oo kale laba jeer sidaan oo kale qaybtan hoose oo kale inuu laba jeer oo uu kusoo noqdo markuu kor aado haddana la soo celiyo then uu kor soo aadi doono marka hadhihi marka labada mar waa semi qiimahan inta maxay u noqon waay sometimes waxa la yidhahda divergence ayuu sameeyaa okay wax divergence ayuu sameeyaa oo ku caddaynaya qiimaha inuu isbeddel soo wado tusaale ahaan meesha yes here tusaale ahaan up to here meeshaan 63.0 something iyo meeshaan oo kale look indicatorski wuxuu ku tusinayaa RSI-ga qiimaha inuu up u socdo ayuu ku tusinayaa okay qiimahan wuxuu ku tusinayaa reversal inuu hoos u socdo sidaas darteed marka qiimahan wuxuu ku tusinayaa marka kan here falaarta markuu sidaan isla keenaan divergence ayaa lagu magacaabaa markay isla keenaan sidaan qiimaha isbeddel ayuu soo wadaa okay micnaheedu waxaa weeyaan qiimaha meesha kore ayuu soo taabtay mar kale ayuu kanna meeshiisa sare ayuu soo taabtay sidaas darteed marka kanna wuxuu noqday higher lower sidaas darteed marka qiimahan isbeddel ayuu soo wadaa sell grey sidoo kale haddii qaybta hoosena uu sidaan oo kale u bandhigo insha allah divergence sida inta oo kale haddii uu u bandhigo insha allahu tacaala isagana isbeddel ayuu soo wadaa oo qiimahaas inuu kor aado ayaa la filanayaa hadduu alla idmo inkastoo uu kan hadda uu isla keenay ilaa inta iskale ya kan hadda uu isla keenay sidaas darteed marka isagana isbeddel ayuu soo wadaa mar si saxan ayuu isla keenayaa marna sida divergency ayuu u keeni doonaa insha allah mar walba oo line-ka uu ka hoos maro 30 ilaa 25 soo buy grey mar walba oo 70 iyo something oo kasii kormarana ilaa 77 ilaa 80 uu ku dhawaadana soo sell grey haddii uu kasii hoos marana soo buy grey sometimes 5 ilaa 10 ayuu tagaa mararka qaar oo qiimaha si waali ah oo u socdo marka insha allahu tacaala ka taxadara waa best one sidoo kale wuxuu leeyahay medium ama support area la yiraahdo line support iyo resistance u noqda waa line-ka 50 ilaa 48% ayuu u dhexeeyaa hadduu alla idmo insha allahu tacaala line-kaas ayaan ku magacaabi doonaa hadduu alla idmo support ama resistance ayaan dhigi karnaa badanana meelahaas waa u cuskadaa asigoo fake break out yar sameynayo wax yar kasoo yara baxayo kadibna kor aadayo sometimesna kor wax yar oo kor baxayo kadibna hoos soo aadayo marka insha allahu tacaala line-kan hadduu aragtaa markuu soo baxay inuu dhowr jeer wax yar ka hoos baxay isku dayay inuu jibiyo maadaama area resistance uu yahay line-ka graafka RSI-ga sidaas darteed markii dambe uu ku guuleystay maanta inuu kor uga baxo insha allah haddana way ku adkaan doontaa inuu hoos ugu soo noqdo ilaa oo xoogaa 70 ilaa 80 uu tago overbought-kan marka waxaa suurtagal ah divergence iyo kale inuu sameeyo meelahan ayaa macquula inuu qiimaha uu ku dhawaado sidaas darteed marka ka taxadar insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa hadduu alla idmo insha allahu tacaala videoga maanta aan uga hadlayay RSI-ga ama indicatorska ugu fiican ama aylaha qofka uu ku trade gareyn karo sidaas darteed marka shuruudaha adigoo raacayo candles stijada kulli shay iska firinaysid ku trade garey hadduu alla idmo walow xitaa scalping xitaa waa loo isticmaali karaa okay marka meesha ugu sareysa overbought uu tago meesha ugu sareysa oo kale oo qiimaha uu bilaabay saacadaha yar yarka oo bilaabay inuu soo dhaco waa soo sell gareyn karta adigoo 25 pips ka qaban doonto hadwaad insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii aad ku cusub tahay channelkeena tahay markii kugu horeysay aad soo booqato fadlan subscribe sar gambaleekana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ka faa'iideysta videoda aan soo gelin doono insha allah sii share garay asxaabtaada la wadaag like sar haddii aad ka heshay videogan haddii aadan ka helinna dislike sar commentiga noogu reeb wixii su-aalaha ama wixii talooyin ah waa anigoo ah xarbaawi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye bye